waa inoo soo socotaa waxaan ku bilaabaynaa barnaamijkeena Soomaaliya siiba magaalada Gaalkacyo oo ay maanta isugu tageen munaasabad ballaaran oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo wakiilo ka socday beesha caalamka siiba kuwa arrimaha Soomaaliya ay khusayso munaasabadii saaka ka dhacday garoonka diyaaradahana waxa lagu kala seexday heshiis nabadeed afar qodob ayuu ahaa waxaana la dhex dhigay Puntland iyo Galmudug waxaana hirgelinta heshiiskaasi damaanad qaaday ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Cumar Cabdirashiid wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo wararka Gaalkacyo kala socday ayaa warbixintan noo soo diray heshiiskan oo tan iyo markii uu dhacay dagaalka Gaalkacyo uu ka shaqeynayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa aakhirkii lagu guuleystay in labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ay meel fagaara ah ku saxiixaan iyagoo ballan qaaday fulintiisa halka heshiiska lagu saxiixay oo ahayd garoonka Gaalkacyo waxaa marqaati ka ahaa xubno ka socday dowladda federaalka madaxda maamul goboleedyada iyo wakiilo ka socday beesha caalamka qodobada lagu heshiiyay waxaa Puntland u saxiixay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas halka Galmudug u saxiixay madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed iyagoo markii dambena iska canqaaday Cabdikariin Guuleed ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dhibtii Gaalkacyo ka dhacday isagoo ballan qaaday in ay fulinayaan dhankooda heshiiska Gaalkacyo wuxuu ka digay in cid kale loo saaro dagaalkii Gaalkacyo taasoo sii fogeyn karta nabad la helo waxaan Galmudug ahaan aniga wakiil uga shacabka Galmudug ku ballan qaadaya hortiina in anaga dhankeena xabad joojinta la saxiixay qodobada afarta ee la saxiixay si boqolkiiba boqol ay dhankanaga uga fuli doonaan insha Allah taala dhibaatadii ka dhacday labada dad ee walaalaha ah dhibaatadii ka dhacday labada dawlad goboleed in meel kale loo xawilo oo dhibka meel uusan jirin loo xawilo aad iyo aad uga xuma dhibka labadan shacab ee walaaluhu ka dhaxdhacay labadan maamul ka dhaxdhacay cid kale oo dhibka lagu sadexaysiin jirteen ma aaminsani laakiin haddii dhibka meel uusan jirin loo xawilo xalkana waa lumaya xalkana meelan jirin laga raadiyo tagi doontaa saadaradeed dhibka meesha uu jiro aan wada tilmaamno si xalka meesha uu jiro aan u wada helno u wada beersano Cabdiweli Gaas oo isna khudbad ka jeediyay munaasabada heshiiska lagu saxiixay ayaa sheegay in ay nabadu cid kasta dani ugu jirto ahmiyaduna tahay Gaalkacyo oo nabada oo lagu wada nool yahay balse ay tahay in la cadeeyo cid carqalada ku ah isagoo sababta dagaalka keentay ku tilmaamay in la weeraray shaqaale dhisme ka waday wada ku taala Gaalkacyo Puntland waxay tilmaamaysaa in nabada ay cid walba dan ugu jirto nabadu ma aha nabad Cabdiweli nabadu ma aha nabad Cabdikariin laakiin nabad cid walba ay dan ugu jirto ahmiyadu waa in la helo Gaalkacyo oo nabada oo lagu wada nool yahay lana yaqaano cidda wada shaqooyinka joogtada ah iyadoo la og yahay cid walba deegaankeeda shaqadii ka dhacday 22 November iyo maxaa sababay waxaa sababay horumar Puntland waday oo la hor istaagay kadibna jawaabtii ay noqotay in shaqaalihii la laayo taasoo aan ka doonayno in madaxdu meel cad saarto cidda gardarada iska lehna ay cadaato sidii hore oo lagu wada noolaa Gaalkacyo oo aan nabadan ahayn colaadan ahayn ma sii socon karto waxaa loo baahan yahay dadkan inay helaan xal iyo nolol waarta inay helaan ayaa muhiim ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo munaasabada ka hadlay ayaa uga mahad celiyay hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Galmudug sida ay ugu hoggaansameen qodobada heshiiska Gaalkacyo waxay halbowlo u tahay nabadda iyo xasiloonida dalka waxaan rajaynayaa in heshiiskani uu hormuud u noqdo dhamaystirka isfaham waaga jira waxaan ku adkaynayaa hogaamiyaasha Puntland iyo Galmudug inay ilaaliyaan ayuu yiri ra'iisul wasaaraha oo ka hadlayay munaasabadaasi ku dhawaad 30 qof ayaa ku dhintay in ka badan 60 qofna way ku dhaawacmeen laba dagaal oo isaga hor yimaadeen Puntland iyo Galmudug 22 iyo 28 bishiina dhaaftay November magaalada Gaalkacyo waxaana sidoo kale dagaalkaasi ku barakacay dad ka badan 40,000 sida ay sheegtay qaramada midoobay Ibrahim Maxamed Aadan BBC Muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha magaalada Muqdisho haddaba siyaasiyiin iyo aqoon-yahano ee Soomaaliya iyo dibadaha jooga ayaa waxay dhiirigelinayaan hirgelinta heshiiskii maanta magaalada Gaalkacyo lagu gaaray iyo in laga shaqeeyo joojinta colaadda Gaalkacyo waxaa ka mid ah wasiirkii hore